ilaahaygi maxamed sameeyaan ku dhaartay ilaahaygi maxamed sameeyaan ku dhaartay sariirta markay ila soo fuulayso gabadhaasi anaa cadiga iyo musqushuba ku qasbahay iyo qubayska hadday nolol jirto horta waxbaan idin sheegayaa midda kale naagtii aniga meherka xalaasha iga diiday ee tiri ila noolow ma hadli kartaa horta afay ku hadasho ma leeda naag Ethiopian iyo Jamaican iyo qashin iyo Turki iyo Swedish u kala duwanayn ma hadli kartaa ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal la yaab leh muuqaalkan sida hordhiciisa baan idinkugu xusnay waxa uu ka turjumayaa ama uu sheegayaa kala tag ama isku dhaac soo dhexmaray nin iyo xaaskiisii isla markaasina mid walba uu gaarkiisa u soo galay live kaasi oo mid walba uu ku sheegay inta ceeb ah ee qofka kale uu leeyahay ama uu ku arkay dabcan ninkani hadlayo ee odayga ah waa ninkii ay kala tageen مليون روبله oo baraha bulshada aad caan uga ahayd run ahaantii milyan roble gabar waxay ahayd isla markaasi dhalinyaro ah oo isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok halkaasi ayay ku soo gudbin jirtay sida ay dadkuba ugu soo gudbiyaan afkaarta kala duwan ee isla markaasi mujtamaca ay hadal hayaan laakiin gaar ahaan iyadu waxay si toos ah u ataagi jirtay ama ay si toos ah ay markaa iyada ah u yani weerar u geysan jirtay afka ah mujtamaca ama qabaa'ilaadka Soomaaliyeed qaar kamid ah kuwaasi oo gebi ahaan baaysan waxba u reeban jirin marka ay ka hadlayso ama markaasi ay live-ka ku kala kacsanayso ay live-ka ay soo gasho hase yeeshee waxay bilo ka hor wada kulmeen ama uu calafku isu geeyay iyada iyo ninkan hadda hadlaya oo ahaa bilooyinkii la soo dhaafay sayiga milyan roble hase yeeshee ninkani odayga ah afkiisa waxaa ka soo fakatay arrimo aad iyo aad fashil ugu ah nolosha bini'aadanimada iyo jiritaanka dadnimo ee marka iyada raganimada ay xambaarsan tahay waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabo qurun ah oo ku saabsan ama marka iyada haddii aan si kale u dhahno aan ku habboonayn in afkaanaga ay soo maraan kaasi oo ah gebi ahaanba in uu bannaanka keenay wixii ku dhex mari jiray gogasha isaga iyo marka iyada xaaskii ilaahay uu u baneeyay waa sida iyagu kolaba ay noo sheegayeen qodobka koobaad waxa uu sheegay in milyan roble ay ka codsatay inay kula noolaato ilaahay baan ka magangalay subxaanallahi iyo gogol dhaaf ama si macnaha markaa saaxiibtinimo ay ula noolaato oo ay ka diiday waa sida hadalkiisa ku xusane in ay meher xalaal ah isu xiraan ama isu bannaan isku yani muxuu ahaa isu xalaashadaan waa sida hadalkiisa ku xusan sidoo kale waxa uu sheegay inaysan u kala duwnayn Jamaicanka oromada iyo waliba qabaa'ilaadka adduunka ka jira maadaama ay ku noolayeen wadamo qurbe kuwaasi oo marka iyada ah aan u kala ahayn milyan roble waa sida hadalkiisa ku xusan ee waxaan inagu dhaheena ma ah waxa marka nagu ceeb iyo nagu cambaarayn iyo nagu dhibaataa inaan soo qaadano codadka noocan oo kala ah ee foolxumada ay fuxshiga ka hadlay laakiin haddana kama aamusi karno maadaama aan nahay mujtamaca Soomaaliyeed indhahooda qaybo kamid ah kuwaasi oo baraha bulshada ku matala dadka intooda wanaagsan fara muxuu ahaa inay qaataan waxyaabaha ee talooyinka ay markaasi ku aadan halka iyada ah inagu aragtideena ninkani waxa meel uu kaga dhacay islaamnimadii iyo diintii taasi oo ah nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu yiri qofkii ceeb hal ceeb oo kamid ah astura ee walaalkii ceebihiisa hal mid oo kamid ah qofkii astura wuxuu ilaahay u ceeb asturayaa kumanaan kun oo ceeb oo uu leeyahay oo qofka isaga markaasi dhaahiran iyo baadinanba inta gudaha ku jirta isaga kale uu og yahay iyo inta dadka kale ay og yihiinba ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala noloshiisa u asturaya waa midda koobaad ninkan oo magaciisa aanan xusi karin ayaa waxa yani muxuu ahaayay uu ku gabood falay ama uu bataatanba beeniyay ama uu buriyay xadiidka isaga ahaa ee nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku sheegay in qofkii ceeb astura ilaahay ceebihiisa uu asturahayo taasi ayuu horta ku beeniyay oo waxa uu sameeyay ceeb walba oo muxuu ahaayay qofka isaga ah ee bini'aadanka ay markaasi noloshu ay kulmisay uu ku arkay ayuu bannaanka keenay waxa kale oo uu ku xadgudbay raganimadii oo ah iyaduna in la nacladay ninka gooshiisa ka sheekeeya xaaska markaas isaga ilaahay u baneeyay gogosha waxa ku dhaxmara ninka ka sheekeeya in isagana ilaahay uu nacladay taasina isagana diinta dhankaasina garaafo weyn ayuu ka gaarsiiyay waa midda saddexaad ee mujtamaca iyo bulshada iyo jiilka iyo muslim iyo gaalba inta bara bulsho ku jirta waxa uu dhax dhigay fuxshi la yaab leh oo madaxa ka weyn kaasi oo gebi ahaanba la yaab ku noqotay mujtamaca markaan u soo noqono milyan roble dhankeeda iyadu laftirkeeda maysan yaraysan maysan noqon qof xishooda oo gabada oo marka iyada dumarnimo isu reebee bal iyadoo nala dhageysa waxa ay marka iyada jawaab ahaan u siisay ninkani ninka waa soo sinasta dhahayo saqajaan dhalay oo dul ee weeyaan
waxa u baahan tahay quraan waxa u baahan tahay dhakhtar wecel dhalay oo garac haataa garac ibnu sina xalaal ma tiid because ina xalaal ay waxa ku cadaynayso ilmahaaga hooyadoodaad leedahay waa soo wasay xalaalan ku soo wasay fiir naagta aniga waa soo wasay leedahay waa qabay 6 bilna waa la jiifo yir gabadha shabanaan degan ilaahay oo daan been ka sheegay nafta bartaan joogi iga qaad waxyaabaha ay ugu jawaabtay kuwaasi iyo kuwa kale oo na soo qaadan karin inaga oo suuqa jilayna ama isku cabsanayna awgeed aanan soo qaadan karin ayaa ka mid ahaa markii alla waxaad aragtaa social media mar alla markuu famil burburo familkaasi oo marka horeba ku dhisnaa propaganda ku dhisnaa wadada saxda aan ku dhisnayn ku dhisnaa istus iyo views raadis iyo lacag raadis ku dhisnaa marka uu burburo waxaa ka dambaysa fashilaad aad u fara badan aflagaadooyin qabiilo loo gafo dhibaato iyo muxuu ahaay isnacay bulshada ka dhaxdhalata ayaa ka dhismo wixii sababay ayaan marka idan la wadaageynaa kow waxaa sababay raggii oo ragnimadii kasoo tagay islamarkaana taagan heer uu dumarkii marka iyada ah uu wax la qaybsado ama uu muxuu ahaay qaniya ka fujisa uu yacni u adeegsado iyo dumarkii iyaga laftirkooda siriigtii iyo xishoodkii dumarnimo ee lagu ogaa ee la yiri dumarka wuxuu yacni xishoodku wuxuu u wanaagsan yahay andhehe xishoodku wuxuu u wanaagsan yahay gebi ahaanba bini'aadanka gaar ahaan muslimka gaar ahaanna wuxuu u sii wanaagsan yahay dumarka la yiri ayay gebi ahaanba ka tageen taasi oo ku tusinaysa gabar social media soo fadhida oo ka sheekeynaysa waxyaaba nin ragga xitaa uu ka qajilaya inuu afkiisa soo mariyo marka waxaa kale oo sabab u ah in dhibaatadani ay soo kordho oo xaaladdu sidan ay u cakiranto waxaa kale oo sabab ah in famil ku dhisan khiyaano been lacag iyo kalsooni darro ku dhisan oo ama ku dhisanba social media iyo YouTube iyo TikTok live lacag lagu kala kacsado ku dhisan in yacni muxuu ahaay dadkii lala soo wadaago taasi ayaa u sabab ah in muxuu ahaay fusqi iyo fasahaad iyo dhibaato iyo xumaan oo dhanba ay daahirto qarniga maanta aan joogno gaar ahaan Soomaalida waxay ugu habsatay arrinkani si la yaab leh adduunka waxaa ka jira qowmiyada aad u fara badan ma arag inta qowmiyad luuqadooda naqaano sida hadda luuqada nationalka ah ee ummadda dhan ay ku hadlaan Ingiriiska sidoo kale Carabta ah sidoo kale luuqadaha kale Afrikaanka ee dadkii dadayow kale badan ay joogaan maana arag nin inaag iyaga oo xitaa gaala qaarkood yihiin nin inaag isqaba oo iscaaya oo soo fariisan nin inaag isqaba oo live lacag ku raadsan oo sidaas kugu maran nin inaag isqaba oo qabaa'ilaadka iyo muxuu ahaay dhibaatada iyo fusqiga saa u faafinaya weligaana maan arkin sababta marka Soomaaliya kali keentay dhibaatadaas waa wax yaani u baahan mujtamac in loo bidhaamiyo taasi oo ah inagu inaan yaani wax walba ku taageerno qabiil iyo adeernimo wax walba inaan ka hormarino reehebel iyo reehebel wax walba inaan ka hormarino ee priority-ga aan siino qabiil taasi ayaa inoo keentay dhibaatada maanta aan dhex taaganay iyo ceebtan ilaahay waxaa lagu mahadiyay in maanta mujtamaca uusan fahansaneyn luuqadeena adduunka dadka ku nool in luuqadeena aysan wada aqoon intaas ayaan ilaahay ugu mahadinayna daawada aragtida qaybta commentiga nagula wadaag muuqaalkana share dheh si uu u gaaro dad badan oo asxaabtaada ka mid ah adiga oo mahadsan